بسم الله الرحمن الرحيم هنانكا البحنتا دورشدا قولها الدقانكا يو وكيلada ka dhici doona Somaliland koobi soddonka bisha shanaad 2021 hadaba cod bixiyo waxa lagaaga baahiyay 10kan qodob ee soo socda inaad la timaado oo fuliso hadaba muwaadin soo qaado kaarkaaga cod bixinta ama base shahaadadaada cod bixinta soona xiro afsaarkaaga adigoo galaya khadka saxa ka raga ama ka dumarka kalena fogaada COVID-19 kii wali wuu jiray qodobka labaad u gudbi kaarkaaga cod bixinta gudoomiye ku xigeenka goobta si loo hubiyo in goobtii saxda ahayd aad joogtid tahayna qofkii kaarka lahaa qodobka saddexaad u gudbi kaarkaaga xoghayaha goobta si liiska cod bixiyayaasha ee goobta lagaaga baaro ama lagaaga hubiyo qodobka afraad saxiix liiska cod bixiyayaasha adiga oo isticmaalaya suulkaaga bidix qodobka shanaad gudoomiyaha ka qaado labada waraaqood ee cod bixinta muwaadin iska hubi in labada waraaqood ee lagu siiyay mid golaha wakiilada ah iyo mid deegaanka ah warqaduhu waa in aanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaaba ay leeyihiin shaabadii goobta si codkaagu sax u noqdo qodobka lixaad kaarka ama shahaadada cod bixinta u gudbi hubiyaha goobta si aad u codayso dabadeed gal ila xirka cod bixinta oo calaamadii waraaqaha cod bixinta adiga oo murashaxa aad rabto shaxda ka horeysa astaantiisa ama lambarkiisa ku qoraya calaamada isku talaabta ah haddii aad caawimo u baahan tahay waxa ku caawinaya gudoomiyaha goobta ama qof aad ku kalsoon tahay isaga oo go'aankaaga tusaya muraaqibiinta xisbiyada qodobka toddobaad haddaba muwaadin labada warqadood ee cod bixinta mid walba gaarkeeda isugu laab qodobka sideedaad si taxadar leh ugu kala rid waraaqaha cod bixinta sanduuqa codaynta ee golaha wakiilada iyo sanduuqa codaynta ee golaha deegaanka qodobka sagaalaad mar labaad ku noqo khadeeyaha goobta si faryarta bidix loo khadeeyo qodobka tobnaad fadlan hore u sii qaado kaarka ama shahaadada cod bixinta si nidaamsanna goobta uga bax tobanka qodob aan soo sheegnay waa muhiim inuu dhaqan galo oo lagu dhaqmo oo aad ku dhaqanto oo qof walba oo codaynaya ku dhaqmo si aan u helo doorasho xor oo xalaal ah waa anigu Cabdijabaar Khaliijiya oo idin leh doorasho wanaagsan guul iyo gobonimo dhammaanteedba Somaliland ha noolaato